maanta runtii waxaan halkan isugu kan yeedhay saxaafadda inaan kelmad kooban ka idhaahdo hadal runtii xalay ka soo yeedhay dowladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya oo ku saabsanaa diyaaraddii ay xabuufinayay oo ay sheegeen runtii inay Somaliland u soo dirayaan runtii waxaad ogtihiin Somaliland 2019 bishii 6 ayuu Somaliland ku habsaday ilaa maanta aynu ku jirno 2020 bishii 5 aynu ku jirno waanu la tacaalaynay runtii dhibaatooyinka ayaxa anagoo runtii ayaxa uu dhibaato badan ku hayo dhinaca deegaanka xagga wax soo saarka iyo xoolahaba runtii waxaan xal ku ambabaray ama aan xal ogaanay saxaafadda ka helay aynay Soomaaliya labadii diyaaradihii ay yiraahdeen waxaan u diraynaa Somaliland runtii Somaliland iyo Soomaaliya waa laba dawladood oo jaara oo walaala oo haba yaraatay wax muxuu ahaay laakiin ayna anaga naga dhaxaynay Soomaaliya noo soo dirto diyaarado waxaan halka ka cadeynayaa hadaan wasiirka horumarinta beeraha diyaaradahaasi haddii ay yihiin diyaaradihii USA ay soo kareysay ay noo soo marisay fow ee labada diyaaradood ahaa ee muddada muxuu ahaay ku dhow bil iyo badhna joogay Nairobi ila farsamo looga soo u joogay Nairobi haddii diyaaradaha Muqdisho soo firsay ku ay yihiin annagu Soomaaliya waxaba yaraatay mucaawama oo diyaarada oo aan uga baahanahay ma jirto Soomaaliland waa dal isku filan hay'adaha international adduunka hay'adaha nala shaqeeyana nooma soo mariyaan annaga deeqaas muxuu ahaay Soomaaliya nooma soo mariyaan marka waxaan ugu baaqayaa runtii dawladda Soomaaliya anigu haddaan nahay Somaliland wax diyaarada oo annaga Muqdisho nooga soo duulaya oo Somaliland imanaya oo ayaxa naga buufinaya ma jiraan waxaan halka ka cadeynayaa diyaaradahaas inayna ka soo duulin Muqdisho oo ayna Somaliland imanin haddii ay soo duulaanna wixii iyaga dhibaato ku yimaada aan mas'uuliyadda anigu qaadaynin runtii waxaan sugaynaa laba diyaaradood oo USA ay noo kareysay oo lacagta noo soo marisay fow oo si toos ah wali maalmo u dambeeyay iminka oo muddo bilo ku sugnaa Nairobi dabeetana si toos ah Somaliland u imanayaan anigu sugaynaa laakiin wax Soomaaliya la noo soo marinayay iyo wax Soomaaliya aan ka wada hadalnay iyo wax intii aan wada hadalku emailada aan isku dirayno iyagana inay soo bandhigi doono sabtida hadii waxba yaraatay Soomaaliya iyo wax meel lagu hadalayo midna ma aan way waa shirkado gaar ah oo kambaniyada ayaa iyo diyaaradaha ka soo kareysan runtii waxaan u arkayaa anigu isku sawir baan runtii u arkayaa marka waxaan runtii hadalkay ku soo koobaya diyaaradahaasi ma ha diyaarado Soomaaliland soo socda anagu diyaaradii aanu sida officialka oo kareysanay aanu fow iyo USA ba ka wada soconay waa diyaarado noo iman doona waxayna ka soo duuli doonaan Nairobi waxayna si toos ah u iman doonaan madaarka Cigaal International Airport oo runtii aanu halka anaguna ku soo dhaweyn doono insha Allah waxayna gudan doonaan shaqooyinkeedu runtii aan ugu talagalnay oo ah inaanu ayaxa kula dagaalano wasiirku waxa uu ku dheeraaday isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyay diyaaradahaasi isagoo tilmaamay in ay qorshe hore isaga kaashadeen wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adaha fow iyo USAID oo ku saleysna in Somaliland laga caawiyo la dagaalanka ayaxa oo dhibaato weyn ku hayo wax soo saarka dalka hay'adahaasina ay ogolaadeen in Somaliland loo soo kireeyo laba diyaaradood oo buufiya ayaxa sidaasina ay ku timi arrinkaasi laga bilaabo 2019 marka ay xasib bilaabmay ilaa yumana hada maanta marka iyo maanta ay tahay 2019 waxaan aad uga wada shaqeynay inaanu helno diyaaradaha hay'adda fow oo runtii aanu wada shaqeyn dowladna diyaaradaha hay'adda fow muddo imika 3 bilooda ayaanu waxaanu ka shaqeynaysay inuu helayn laba diyaaradood oo aanu kula tacaalno ayaxan ku habsaday Somaliland waxaanu runtii ka helnay hay'ad Mareykanka oo USA la yiraahdo ayaa bixisay inay Somaliland ka caawiso laba diyaaradood waxayna soo dhex marisay hay'adaasi fow oo aanu runtii wada shaqeyn anagu leenahay ka wasaaradda beeraha muddada 3 bilooda ee ugu dambeeyay waxaanu ka wada shaqeynay hay'adda fow iyo USA waxaanu ka wada shaqeynay shaqooyin badan oo ay ka tahay diyaaradahan dawooyinka ay isticmaal lahaayeen oo muddo hore aanu saxaafadda la wadaagnay oo aanu keenay Somaliland oo diyaarad gaar inoo keenay waanu ka soo dejinay madaarka Cigaal International Airport waxayguna taan noogu xigtay inaanu diyaarsanay muxuu ahaayay diyaaradahaasi labada diyaaradood ah
meelihii ay madaarka ka ay baakinka ay madaarka ay ka joogsan lahaayeen oonu sii diyaarinay staffkii ilaalin lahaa diyaaradaha oo aanu diyaarinay diyaaradaha oo 2 xabba ahaa oo USA noo kareysay oo ay soo marisayna lacagtana ay soo marisay fow waxa diyaarad walba la socda 2 duuliye iyo nin farsamo iyo xubin farsamo yaqaan waxaan golaha wasiirada ka sheegay in 6 shaqaalaha diyaarada la socda anan maadaama xanuun uu jira adduunyada hadda iminka xanuun jiro in madaarka lagu baaro oo xamadooda la eego laakiin aan la karantiinayn 14 cisho maadaama ay diyaaradu nagu joogaan kiro waa diyaarada madax bannaan oo shirkado gaar leeyihiin oo ay fow muddo badan shaacisay oo aan markii dambe ay soo heshay waxaan geeyay runtii madaxweynaha oo isaguna gacan iga siinay iyo golaha wasiirada waxaanu isla garanay in cashuur dhaaf loo sameeyo in staffka diyaaradaha ilaalin loo sameeyo in waxaan u diyaarinay guriye ay gali lahaayeen waxaan u diyaarinay madaaradii ay ka bixi lahaayeen ka dhoofi lahaayeen ay ka kici lahaayeen oo ugu horeeyay madaarka Boorama iyo muxuu Hargeysa burco meel kastaba ay ka tago fariisan karto waxaan u diyaarinay meelihii ay buufin lahayd baan u diyaarinay ay ka bilaabin lahayn shaqada wasiir Axmed Muumin Said waxa uu intaasi ku daray in wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay la wadaagi doonaan dukumentiyada cadeynaya in hay'adaha FOW iyo USAID ay xiriir kala sameeyeen arrinkaasi in Soomaaliland laga caawiyo la dagaalanka ayaxa wixii inta ka dambeeyana waxaan la wadaagi doonaa runtii macluumaadkii han isweydaarsanay USAID iyo FOW aan isweydaarsanay iyo muxuu ahaayay wixii aan muxuu ahaayay intii aan hawsha waday waxaan la wadaagi doonaa aan ku wareejin doonaa berri haddii la yiraahdo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaan dhugmadkan ku wareejin doonaa gabagabadii wasiirku waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in ay Soomaaliya ay sheegato hawl ay Soomaaliland hore u sii qorsheysatay isla markaasina ay ka caawinayaan hay'adaha marka anagoo hawsha intaas soo socotay waxaan aad ugu xumaay runtii in Soomaaliya waxayna lahayn ama waxayna ogeyn intay habeennimadii boor samaystaan ee ay diyaaradaha runtii isku sawiraan diyaaradaha wad arkayseen saxaafadda waa laga arkay diyaaradaha kaliya waxa ku dhajisan FOW oo qura ku dhajisan Soomaaliya kuma dhajisano cid kale kuma dhajisano waana diyaarad bareefada oo aanu shirkada ka kareysanay oo dalka u soo socday weeyaan marka aad baan ugu xumaay runtii madaxda Soomaaliya inay mar walba isku sawirayaan waxyaabo ay shaqo ku lahayn waxa taa ku xigay inay dhawaadna sheegeen in wasaaradda horumarinta beeraha uu soo diray khubaro ka caawiya dhinacayaha taana runtii maan arag anagu mananu maqal waana nasiib dar runtii inay shacabkooga been u sheegaan waxaan ugu baaqayaa inay la tacaalaan dhibaatooyinka shacabkooga haysta annagana ay noo daayaan muxuu ahaayay haddaan nahay reer Somaliland anagu annaga isku filan oo shacabkeegana